wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ay inoo maqashaan kusoo dhawaada barnaamij cusub oo la magac baxay xaqiiqda iyo xogta daahso. waxaan kusoo qaadan doonaa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Puntland. gabar 12 jir ah oo la iskugu daray dil iyo kufsi iyo tacadiye ka dhan ah bini'aadanimada. Caasho waa gabar 12 jir ah oo dhiganaysay iskuul oo ku dhaqnayd magaalada Gaalkacyo ayaa la iskugu daray dil iyo kufsi, hilbaheedina lagu jarjaray jawaan cadde, taasoo ummadda Soomaaliyeed ku noqotay argagax iyo arrin lama filaan. dhabarkeeda miyaanay saarin akhay wuxuu waa dharwaayo ma aha Soomaali dhalada dharkeeda intay ka siideen intay toorey ku dhaabeen intay dhiigeedi nuugeen markay dheelimata suuxday intay meedkeedi dhuuqeen. murugo iyo argagax ayay ku noqotay dumarka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo falkan loo geystay gabadhan 12 jirka oo ah kufsi iyo dil iyo tacadiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha. waxa ayna ku qowlayeen dumarka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo hadalla dhiila kicinay. dumar haddaan nahay waa dulmanahay, dumar haddaan nahay waa rafaadsannahay, dumar haddaan nahay waa ma socon karno oo gaari ma raaci karno oo ma lugayn karno oo meel aad nama dhaqaano. waxaan ka baqaynaa wiilashayagii, waxaan ka baqaynaa nimankii garabka noo ahaa, waxaan ka baqaynaa nimankiina difaaci lahaa. waanu dulmanahay 24 saac nolol kuma jirno waa dulmanahay. haddayna raggu mas-uuliyad sheeganayaan oo ay awood waxay ka hadlaan maxaa la qabtay iyo horumar maxaa horumara annagii baa dulman amni ma jiro. hadda waxaa la maraya awal waxay ahayd in facebookyada la soo dhigo. dhalinyarada aadka looga yaqaana baraha bulshada qaasatan Facebook ayaa isku si uga gadooday. kani waa abwaan xarago waxa uu ka carooday dhacdadii loo geystay Caaisha oo 12 jir ah oo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo. waxa uuna ka codsaday beesha caalamka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland in si degdeg ah cadaalad loo waafajiyo raggii geystay arrintani ummadda Soomaaliyeed ay ka argagaxday. lama oga inuu ku faraxsan yahay iyo in uu ka naxsan yahay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani arrinta ka dhacday magaalada Gaalkacyo, maadaama uu ficil iyo qowl labadaba uusan midna ka dhihin balse uu ka gaabsaday arrinta ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. dhanka kale waxaa ka hadlay falkii wuxuushnimo ee loo geystay Caaisha oo ahayd gabar 12 jir ah taasoo lagu dhigay kufsi iyo dil. Sheekh Kenyaawi waxa uuna ka yiri sidatan asagoo matalaya culimada Soomaaliyeed. waxaan halkan aan rabaa fursadan qaaliga inaan uga faa'iideysto in aan cambaareeyo si xun waliba aan u cambaareeyo arrinkii dhacdadii foosha xumayd. gabadheeni waa gabadhaydii waa gabadhaadii idaylkeen waa gabadheeni gabadhii da'da yareedii aan qaan gaarin Caaisha Allah u naxariistee ficilkii ama falkii waxshinimada ahaa ay kula kaceen mujrimiinta ay kula kaceen. gabadha waxa loo geystay dil kaliya ma ahayn bal gabadha dulmi fara badan baa runtii lagu sameeyay. gabar daa'iyar oo aan dhalay oo aad dhashay dhexdeena in sidaa lagu yeelo waa ayaan darro kale weeyaan. marka falka loo geystay waa zino waa dil waa argagixis waa maaragtay iyadoo jirkeedii lagu ciyaaray indhihii laga saaray la dooxay wax walba xun baa loo geystay. falka waa fal Ilaahay ka carooda bal wallahi waa fal samado iyo dhulku ay la ooyaan waa fal samadu ay la dildilaacdo waa fal haddaynan si dhaqso leh arrinka u xallinin mujrimiinta qabiil ma lehe aan la soo wada qaban dhan looga wada jeysanin wallahi waa fal Ilaahay inugu cadaab. intaa kadib waxaa baraha bulshada lagu arkayay dhalinyaro aad u daayar oo ka dhiidhiyay xumaanta lagula kacay gabadheeni Caaisha oo ahayd gabar 12 jir ah oo la iskugu daray kufsi dil iyo hilbaheedii oo la jarjaray. waxaana ka mid ah suugaantii ay ku cabireen dareenkooda.
miyaan cirdigaaga iyo xaaskaaga carfoon ahayn miyaan caqli gaabanow sagaalgu calool ku jirin miyaanay culays dartaa cuntada awgaa u nicin miyaan caanaha macaan horraadkeedana ka cabbin maxay tahay ciilka iyo ceebtaa dumarkula kacdee cishaba taniyo markii ay dhacday dhacdadan xanuunka badan oo loo geystay gabadha 12 jirka waxaa isi soo tareeyay suugaan xanuujisay qalbiyada ummadda Soomaaliyeed taasoo ay ka soo maaxatay abwaaniin aad u fara badan haddaba balila dhagaysta suugaantan xanuunka badan leh ee gabadha Soomaaliyeed ay ku luuqaynayso wax dhigo barabaha dibiyo marinbaha rajaan ka dhabeelaha qayrkii inaan dhaafo iyo ku dhaqan hadaf baalaha wax kastoo aan ku dhiiran jiray wax kastoo aan ku dhaadan jiray qabriga waaniga dhexyaal anoon waligay qof dhibin ragba hilibkayga dhilay wanaag ilamay dhaqmine dibiyo silacbaan maro waxaan dhaxlay muruga oo qalbiga dhamacba ka baxay ragba hilibkayga dhilay kaliya dhacdadan kama dhicin maamulka Puntland dhawaan ayay ahayd markii gabar Soomaaliyeed oo xubinta taranka xabad kaga dhiftay askari ka tirsan isla ciidamada maamulka Puntland oo aysan jirin cid wax u qabta maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee martigeliyay kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed maadaama ay dhacdadan xanuun kale ay ku soo laalaabatay isla maamulkaas aysan jirin cadaalad wax ka qabata dumar haddaan nahay waa dulmanahay dumar haddaan nahay waa rafaadsannahay dumar haddaan nahay waa ma socon karno oo gaari ma raaci karno oo ma lugayn karno oo meel aadna ma dhaqaano waxaan ka baqaynaa wiilashayagii waxaan ka baqaynaa nimankii garabka noo ahaa waxaan ka baqaynaa nimankiina difaaci lahaa barnaamij la magac baxay xaqiiqda iyo xogta daahso waxa idin soo gudbinaya anigoo ah abwaan xarago intaan barnaamij midkan lamida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya intii dhimata Allah u naxariisto inta noolna Allah badbaadi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh